بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. barnaamijkan iyo kuwa la midka ah waxaan mar walba u sameynaa inaan wacyigelin aan u sameyno dadkeena Soomaaliyeed meel kasta ay dunida kaga nool yihiin. sababtu waxay tahay in IT-ga iyo teknolojiyadda ay noqotay furaha lagu maamulo adduunka oo dhan. waxaa soo socda isbedelo aad iyo aad u waaweyn hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca bulshada, hadday noqoto dhinaca ganacsiga, hadday noqoto dhinaca isgaarsiinta. adduunka waxaa ka dhashay ama ka curtay kacaamo aad u badan, hadduu noqon lahaa kii beeraha, hadduu noqon lahaa kii warshadaha, hadduu noqon lahaa kii informationka oo maanta aan taagannahay oo ah digital. haddaba haddii dadkeena ay ka harayn kacaamadii hore oo wax badan aysan ka faa'iidin, waxaan jeclaan lahayn in maanta aan marlaba ka harin kacaanka cusub ee dunida ka socda ee ka hirgalay ee runtii si xawli ah ee hadda u soconaya. mar walba waxaan halkan keennaa qaar ka mid ah dadkii ka aflaxay ama ka qalinjibiyey iskuulka globalnet. waxaana si wanaag ah in maanta halkan uu joogo mid ka mid ah xidigaha aan xusnay oo magaciisa uu yahay injineer maxamed geelle. waxaan jeclaan lahaa in aad si wanaagsan ila soo dhaweysaan injineer maxamed geelle oo hadda stuudiyaha ku sugan. kusoo dhawo injineer barnaamijkan isaga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo maalin sabti ah oo globalnet aan joogno stuudiyoga macalinkuna ila joogo inaan halkan wacyigelin badan ka samayno. macalin aad iyo aadna waan u dhowahay, aad baad mahadsan tahay, gaar ahaan adigan aad ku mahadcelinaya. waxaad warbixin naga siisaa dabcan waddankan muddaa joogtay, waxyaalo kalaa soo dhigatay, shaqooyin kalaa kasoo shaqaysay. marka IT maxaa kugu dhiirageliyay inaad bilowdo aad dhahdo now is the right time inaan IT aan sameeyo oo aan kacdoonka adduunka ka socda aan ka mid noqdo? sababtu maxay ahayd? bismillah, macalin aad baad mahadsan tahay. macalin horta adduunyadu isbedelaysaa. waxaan maqalnaa global warming, kacaankii warshadaha, kacaankii beeraha horaad u jiray aad soo xustay. waxay igu dhiirigeliyey anigu shaqo fiican baan ka shaqayn jiray, company baan u shaqayn jiray, logistic company marka admin bank administration baan ka shaqayn jiray. dabeedna waxyaalahan ogaaday inay muhiim tahay inaan barto IT-ga waxay igu kalifay nin cadaan nala shaqayn jiray ayaa waxoogaa yar IT yaqaanay moogtay. marka meeshu qabqabla ka ahaa aad baan uga carooday moogtay. anigu markaan shaqada tagay waxaan dadka hore wax u bartay quick learning ka moogtay. dabeedna waxaan helay traininyo badan, project baan sameeyey, waan ku guuleystay. laakiin IT-ga iga dhinaa, isaguna IT-gu iga xaribsanaa moogtay. dabeedna waxaan raadiyey solution. waxaan eegay UCAS-kan eegay, jaamacaddu 3 years bay qaadanaysaa. waxaan ka fikiray niyo wax short time aad ku baran karto oo adoo shaqaynayana aad baran karto, aan culays badanna kugu qaadan sidaad u heshaa. dad badan oo Soomaaliyan waraystay, nasiib wanaag nin ka mid aan helay wuxuu igu yiri waniyo globalnet baa jirtaa. waxaan ku yiri niyo xaysiiska bari hore ayaa University TV ka daawan jiray, laakiin bariyahan maan arag, ma la xidhay. markaasuu yiri lambarkii baan hayaa. waxaan ku yiri waniyo lambarkii soo qaad. lambarkii buu ii keenay. dabeedna markuu ii keenay waan kula soo hadlay. waxaad igu tiri maxay ahayd 2019 baad markaan nimid globalnet samarkii induction baad sameynaysay. ninkii aniga telefoonka ii keenay wuu la socday maalinta ayada aad sameynayay. kaar baagu telefoon ku sheekeynaya aniga meeshu keenay. waxaan ku yiri soo gal, I hope inuu maanta daawanayo. soo gal baan ku yiri. dabeedna wuxuu yiri adigu inoo soo qor wuxuu macalinku ku sheekeynayo oo dhan, anigana maalintaana waan kula tegi doonaa galaaska. induction baan galnay, dadku way badnaayeen, aad baad noogu fasirtay, aad baan uga helay, waan qoray wax kastoo tidhaahdo. waxaan ka xasuustaa ilaa maanta aan safka koowaad fariisan jiray, because aniga safka koowaad waxaan fariisan jiray dadka iga gadaashooda ka sheekeynaya ma jeclaysan jirin. marka inaan waxba dhaafin xagga hore fariisan jiray. marka waxaan xasuustaa hal su'aala oo dardaarana weli way qoran tahay, meel ku dhigtay moogtahay. Soomaalidu waxay inay noqoto waxaan jecelahay waa tiri dad Afrika ay nool nool sidooda kale inoo dhaqmaan oo xariifina iyagoo waxba garanayn UK bay yimaadaan. markii shaqo professor ama jaamacad shahaado qof kale sita ayaa arkaysa. wallahi arrinkaasi kelmadda aad tiri maalinta aad iyo aad waxba ii tartay moogtahay, waan qortay. induction-kii baan dhameynay, ninkii baan u tagay. waxaan ku yiri warda wax badan aan ku dhaafay. markaasuu yiri iska dhaaf soo adigu ma haysid. okay waan ku yiri aniga ku hayee khamiista soo socota 6 o'clock ayaa galaaska la bilaabaya. waxoogaagii kharashkaagiina soo qaado xagga hore laga dhiibaa. markaasuu yiri waa soo raacayna. aniga shaqo ka shaqayn jiray, waxaan ahaa dadka early shaqeeya 6 to 2. nasiib wanaaga waqti baan u helay inaan habeenkii waa boogtay.
arbacadii markaan joogno wacay cabdiraxmaan kumie aniyo arrin baa igu soo kordhe ka dambe ka qayb geli doona adigu iska aad ma sidaas ahaa muu qaadan waa iska tegay aniga Glasgow iska imiday waan xasuustaa September baan bilawnay 2019 A+ baan bilawnay arday aad u fara badan baan ahayn dadku xiiseynayeen course-ka mugti Glasgow full buu ahaa mugtay marka meel kala fariisto oo hore loo yimi jiray si aan A+ asaas macnaheedu baan bilowno intii dadku aad u soo buuxdaafiyeen in class ay noqoto iyo online hadda adduunka dhan laga soo baxay meel kasta kamid ah dunida ay noqoto marka dhiirigelin baan helay markaan arkay dad badan oo dhalinyaro oo Soomaaliya oo IT-ga baranaya oo A+ baranaya oo isku hamiya oo meel wada jeeda oo farxay dabeedna markaan halka marayo ay asxaabtayda horta bedelay totally waxaan ku 20 sano buu sheegayseen hal erayo RAM amba maaragtay memory kama faa'iidin ba goodbye saaxiibay waa commitment mugti inta ka soo qaban kartay ka soo qabatay inta soo kaxayna iskuulkan keenay wad u tay ogaas fiican dadkii waxay ku dhaadeen warniyo last 3 months kumanan arage xagga ka baxday waxaan ku niyo aniga waxbaan dhigtaa markaas ugu dhaadeen aad maxaa ku rasaa bari hore wax soo dhigatay sidii iska shaqaysan shaqo fiican baa san ku ri aniga saaxiibay waxaan rabaa wax cusub adduunka soo socda qabeelaa soo socda waliba waxaan helay baan ku dhinay nasiib wanaag dadkaygii wax baraya oo iyaga baxaya Soomaali baa iskuul kale Soomaali wax ka baranaysa luqadii wax mid kasta waa lagu barayaa waa lagu hagar baxaya marka adiga ku xiran markaas ay dhahdeen warniyo naga dhaaf adu sheeka Soomaali baa haysaa waa iskaga tagay iskuulkeygii baa iska watay wixii soo kaxaysan karay waan soo kaxay wixii aan ka imidna wali halkii taageen waan ka imid wali waan u tagaa laakiin kama quusan laakiin haddana insha Allah waxa isku day inaan xabad bal soo kaxeeyo iskuulka keeno imka dhowr baaban keenay already markay arkeen u fiirsadeen macallin A+ kan aad ma bartay ma sha Allah 3 bilood baan ugu qaadatay course-kii inaan dhamayno fahanno computer-ku wuxuu yahay macnihiisa iyo wixii markii hore naga dhaadhaxsanaa markan A+ kii dhameeyay shaqadii baan ku noqday ninkii isku kaay xarifin jiray diiga meeshka waxa ku dhacay ninkii wuxuu isticmaalayay mouse wireless tani bay ku shaqeysaa ma xasuusta mouse maalin aruura kamid ah way istaagtayba ray baa loo dhan jiray maagtay ninkii ray oo la cararaya mouse tee kula this is not working what happened do you have any idea hayo oo meel buu wacay IT maagtay supportki markaas ku leeyihiin meel IT lana oo telefoon oo wici jirnay markaas ku ray maxaa kugu dhacay niyo maanta so stress markaas ku yiri niyo Maxamed Geelle Kamal waxa ku dhacay niyo mouse kan ay ga jabtay ma shaqeynayso sankuri bal mouse ka idib sankuri do you know mouse kan ay battery ku shaqeyso markaas ku yiri no you lied to me sankuri I can show you waan furay waxaan ku battery ka saar ku kala geli oo yaabay markaas uu yiri how did you learn buka uu la dhigi jiray markaas uu yiri how did you learn markaas ku yiri imka kuma sheegayo after 6 months I'm going to tell you amazing macallin shaqadii anagu ku jirna ayaa waxay yimiday community-ga waxay bedelayeen software-rada ku shaqeeyaan marka software-rada waaweyn baa meel ku dhajisnaa qayb kamid ah 22 office bay lahaayeen nin Hindiya noo yimiday moogtay marka ninkaasi aniga oo meesha qayb team leader baan kaan jiray wixii ga bedelayay password-ka iyo new system bisinay aniga waxaan ku orin ninkii warqadda aan samaysanaya edit wi aamin waayay waxaan ku ori okay hal computer igu taskare hadda igu taskare soo baaso waa okay hadii kalena am fail markaas uu yiri okay nakeen wuxuu yiri kan samee waxaan ku kan ana isticmaala ma samaystaa ha wixii baan galiyay OneDrive baan ku bedelaynay wax kasta mogtay OneDrive baan sameeynay marka Excel baan ka isticmaalanay Outlook share warqadu sida moogtay aniga la isku gana ugu bartay A+ already ina step kan 1 step 1 step 2 step 3 waxaan ka sameeynaa already every day wala xafida mogtay waan sameeyay wuxuu yiri brother how do you learn this markaas ku ri anigu waxaan ku bartay only 3 months markaas uu anigu waxaan ku bartay 3 years markaas uu yiri managerku tagay managerku ugu fiican English waa aad fiican soo dhaweyn jiray wuxuu yiri niyo aniga shaqada way ugu badan tahay waxaan doonayaa Mr. Geelle inuu caawiyo managerku yaabay how Geelle ku caawinaya Geelle isaga IT man
ilan kuguma ogan iyadoo ka shaqeeya administrationka qaybta officeka adminka ka shaqeeya waxaasu ninkiiba u yimiday uu wareystay weliba ninkan cadaankii wuxuu ku dhashay South Africa moogtay waa afrikaankii waa afrikaans moogtay Hollandiisa wuxuu yiri maxamed xagee ku baratay waxaan ku yiri macallin waxaan ku yiri saaxiib anigu maalintii macallin baan leeyahay wax bara oo school baan anigu waxaan ku yiri big community baan nahay Somali people marka big community organization baa UK ku diganahay marka private school aan leenahay marka xagee ku baratay waxaan ku yiri anigu school global net leeyahay ayaan dhigtaa oo goorma tagtaa the eveninga markaan shaqada tuuban dhameeyaa maxaad samaysaa waxaasoo correspondence waxaan sameeyaan kule A+ baan ka dhameeyay network baan dhigtaa markaas uu yiri haddii shaqo soo baxdo community qaybta IT-ga ayaan kula hadlayaa markaas waxa dhacay ninkii Ray Cadaan meesha eerin jiray baa yiri maxamed afdaan jindiga ku yiri kana ka harisan already maxamed meesha waxa ka muuqanaya in dadkan ay ku waabsan yihiin ilaa waxay arkeen intii yarta abratay A+ka ugu muhiimsan qabanaysa iyo ciladaha bixinaysa iyo iyada wali basic ay tahay meel hoose tahay macallin dadku ma oga information power asig Soomaalidu ma oga marka A+ kala bilaabayo anigu dadka waxaan ku wacyigeliyaa meel kasta joogaan A+ is a foundation waa guriga marka la dhisayo waa asaaskii su'aalaha shaqooyinka lagu weydiinayo iyada ugu badan shaqadeedii marka waday manageradoo dhan markuu computer ku xubada ana sameyn jiray ilaa printerka tii hore dawladna A+kii network +kii baan dhamaynay waxaan dhamaynay 2020 meelaha March ayaanu dhamaynay pandemic waxa soo baxay COVID-19kii ma xasuusta anagoo joogna maxayday Stonebridge oo bilaabana serverkiiba waddanka dhan shutdown laga dhigay March 2020 ilaa July 2020 shutdown baynu ku jirnay ya waxaanu samarkii markay ahayd 2020 ayaa la furay iskuulada aad markaas bilowday inaad online server kii ugu horeeyay bilowdo iyadoo Zoom ku dhiganayno dibna online kii baanu ka bilownay server markaanu bilownay arday badan baa qortay laakiin guryahaanu joognay waa lagu adkayd runtii waa first time online wax ku barano ma garanaysayo wax difficult baa nagu noqotay laakiin waa la qabsanay maadaama aanu network iyo A+ soo sameynay ma sha Allah serverkii waan dhameynay September waxa tiri shaqo taga ya maxamed halkan igu qabo intaadan shaqada aadan aadin waxaa samaysay A+ waan dhameynay kadib waxaa samaysay networka waan dhameynay kadib waxaa samaysay server waan dhameynay markaas saybaha aad socotay kadib ayaa waxaa bilowday shaqo raadin maxaa kugu dhaliyay inaad markaa shaqada aad doontid macnaha dada sameeya hadda saybaha dhigta ama saddexda kursa qaata oo weli aysan ka dhaadhicin inay shaqo raadiyaan adiga maxaa kugu dhaliyay macna waxaa tiri marka anagoo network plus dhiganayna shaqo doonta adiga nagu yidhi mogtay aniga iga degi weyday mogtay anu waxaan isku haystaa marka inaan wax aqaano ma garanayo cilmi badan haysto laakiin waan haystaa laakiin moogi oo igama dhaadhacsano ma garanaysaayay ina A+ kaba lagu shaqo tagabayo network pluska oo dad badan oo shaqooyinka ugu tagay labadaas haystaanba ya waan ku shaqeeyaan waan iswaraysanay dib baan u eegay Somali community-gii waan yaabay maxay ka sayaan maxaa khaldan macallin waxa tiri ana idka caawinay CV-yada interview-yada gala global net YouTube-ka ardadii hore la xiriira because bontiga waa maxamed waxa ka buuxay YouTube-ka a lot of video oo ugu talagalnay dadkeena Soomaalida ah inay fiirsadaan qofka inta kaliya waxay u tahay cashar weyn hadduu u baahan yahay shaqo raadiya xagga laga raadiya maxaa la sameeyaa su'aalaha yimaada waa maxay laana video walba aan dulno isagoo sidiisa ah ayaan waxaan soo dhignaa sidiisa qof walba waxaan ka codsanaynaa YouTube-ka aad tagtid oo aad daawatid macnaha barnaamijyada aan ka samaynay dadkii badnaa oo halkan yimid oo runtii informationkoodii aqoontoodii idina wadaagay macallin anigu markan YouTube-ka kale aan follow gareeyay subscribe ku sameeyay global net waxaa ii soo dhici jiray arday badan oo Soomaaliya oo global net ka baxday oo ka sheekeynaya caqabadii interview-yada shaqooyinka ay ku heleen su'aalihii maasaf aniga waan qoran jiray difficult question waan qori jiray note baan ka sameyn jiray waana sida ugu fiican talabaad nasiibka Soomaalidu waxay ku leedahay YouTube-ka haday daawato global net oo kaliya ayaa ugu filan way aragnimo
iyo inuu qofku shaqo isagoon istaanin helo لأنه قفل بحكة شكينة تاريخ دي سي بلا ولا ما Yes, سؤال كسر ودي بدن كذا ويحسن ويشيء way sheegeen waxay xuseen difficult question wixii ku dhacay caqabada sida uga gudbeen anu most of time waxaan daawan jiray video midba ka adag yahay ee difficult ka yahay ee trick question ku jiro oo qori jiray note baan ka samayn jiray I think arday badan waa siiyay imika waxaan ku leeyahay ka faa'iideysta That's good ما شاء الله سو محمد وحاب لو ذي شغلة دينتي طبعا قفت مركو شغلة دينتي بلا بيو شغلة دينتي لفتي لا وحيت هاي شغل macallin waa cabsi waxaa loo baahan yahay kalsooni uu haysto cabsida meel iska dhigo nidaam samaysto system samaysto waxaa nooga sheekaysaa shaqadii processka aad loo shaqalaadinta qaabka u wada gashay macallin anigu horta nasiibkan lahaa waxay ahayd go'aankaygu wuxuu ahaa waxaan ku xidhnaa iskuulka gobolneed waan kusoo noqon jiray waanan imaadaa imika arday badan oo ka baxday oo halkan iman jirtay ayaan waraystay iyo CV-ga sida loo sameeyo way ii warameen adiguna waxay badin badan baad ka samaysay sida shaqooyinka loo helo barnaamijyo badan baad qabatay macallin horta markaad qofku soo dhameeyo koorsada ee lagu dhaha shaqo tag shaqo diyaar u tahay qofku cabsana waxoogaa waxa aan confident bad noqonaysaa mogti waxa soo nasab badanaad gashay maxay ahayd ilaah ka saaran leedahay sada ila ma ogide sax ila ma ogide libaax nimaan ogeyn baa la xakarida ya waatiyo badal lagu sii daalay libaax bilad soo qabo way adag tahay mogtay okay macallin wallahi waxay u dhacay waxyaalo aad u faray mogtay aniga markii aan CV-ga samaystay ardadii isla eegnay aan habeeyay CV-gaygi waxaan ku tuuray website-dadii shaqooyinka IT-ga bixinayay I remember first day waan xasuustaa anigoo guriga jooga iska fadhiya 20 telefoon oo shaqooyin ay soo galay wow 24 one three waa very day one three ilan habeennimadii ilaa maalintii aan bilaabay maalintii ugu soo bilaabay ayaan 5 iyo 30 CV kala diray isma ogi mana kala garanay kuwan u diray aqoon ma nootay in aqoon bay baad tahay waxay aniga ardayda waxaan ka dardaarayaa ama dadkii daawanaya halkan Soomaalida waxaan ka dardaarayaa markii CV samaysataan please CV-giina macluumaadka ku jiro wayna dhakada ka haysan waayo caqabado badan baad ka hor iman doona way nagu dhacday anaga laakiin waan ka gudubnay aniga waxa la weydiiyay maxaad qaban jirtay CV-ga ku taala CV ma CV-ga wuxuu ka tarjumayaa Maxamed muxuu yahay muxuu qabtay yaa tahay macallin qof baa ku soo wacaya halo hebel baan ahay recruitment agency baan ka socdaa ku wareysanaya ku la qosqoslaya I think wuxuu taskareynaya attitude-kaaga dabeecadaada iyo behavior iyo communication how you skill you have a communication baa lagu odhanaya uu fahmaya I think Trello بهد ويب سايت بدنا سيسي بري Trello ما قلنا ما حصلها عياتي to organize your ما قلنا سا for good واستعمال شيء وقتي أنا ما كان تجد أو مرة كوسا معنا سمنا بروجكت وكوسا معنا الشيخ محمد الشيخ محمد يعني قوسا يا عبد الرحمن يو إنما بدنا من هالكر مركا وكيف هيدي وقتي مين كنا حويان dadka waxaan ku dardaarayaa wax kasta halkan yaalan global net waa hadii adigu aad doonayso inaad badda ka taloodo haddii kalena badda kula qasaa waxaad noqonaysaa sayn cabdi yasirday cabdigii shalay so waxaan taaganahay maxamed oo CD samaystay oo CD-ga ku tuuray macnaha dhowr website so dabcan website-yada ardada badanaa way sheegaan CW Jobs iyo Jobsave ani waxaan ku tuuray waxaan ka bilaabay CV library Indeed baan ku shubay CAW baan ku shubay Jobserve baan ku shubay Total baan ku shubay waxaan ku shubay oo kale LinkedIn baan samaystay LinkedIn profile baan samaystay waan qarxay mar kaliya sidaan u fadhiyay waxa soo dhacay linkiga moqtahay waxa profile-ki maxamed waxaan arkay suudkiisii wato ana sameeyay waxay ugu qaadatay half an hour inuu ku sameeyo to connect to you so ana soo kala gareey yeah I have seen waa qofkii hore kala gareeyay ma sha Allah because markaan create gareeyay waa LinkedIn ku yar adagay moqtay waa very important moqtay waa inuu base yahay CV on your CV moqtay macallin shaqooyinka soo caburtay arurksa maxamed are you available you at the moment how's your situation baa lagu dhahdaa xaaladaad sudaytaa sheekhow oo ka waran waa inaad waxa loo baahan yahay inaad istajiso qofkan ku soo wacay aad iska iibiso okay maxamed dadka hadda barnaamijka daawanaya dabcan maxamed markuu CV-ga uu dalbaday shaqooyinka oo lagu soo wacaya specific questions ay ku weydiinayaan su'aalaha lagu weydiinayo haddaan nooga sheegto 3-4 ka mid ah ugu badan dhanka telefoonka waxa lagu weydiinayaa xagee degan tahay marka hore ma London ba degan tahay mise outside because community ku soo ay qaar outside ba degan yihiin because sometimes CV-ga lagu qoro address-ka waxa degan tahay moqtay location-ka waxa ku oranayaan saaxiibow CV-gaaga waan helnay waxaad u egtahay I think position-kan hayna inaad qancinayso experience-kaaga nooga sheekay IT-ga maxaad soo qaban jirtay
de waa inaad isiibsaa tiraahdo anuu waxaan ahaan jiray nin hardware-ka aqaana software-ka aqaana active directory-ga waxbaan ka aqaanaa oo aad u sheeg macnaysaa haddii aanad one by one u sheegin waxaad ka sheekeynayso most of the questionka ku weydiina waa A plus magaranaysa A plus ku dadku ayar bay degdeg u dhaafaan kuma soo noqdaan magaranaysa su-aashaha la weydiiyo waxaa kamid ah mataqaanaa sida loo sameeyo password-ka active directory baad nagu dhigtay group permissionka ama group policy-ga mataqaanaaba laygu yidhi haa waan sheegay waa buuggii baan haystay mogti oon xafid dhakadhakaayay 2 jeer baan ku celiyey سؤالها كانوا قالوا حياهم over the phone. over the phone ما هتجلك ماشي اوفيس كما تجي صورتها وحاسو فون كان لو دينيا marka stage ka baasto ayaa koornasa interview waan ku soo direynaa face to face amba bariga face to face mu jirin waxay Teams microphone waxa jiray pandemic baa lagu jiray COVID-19 ka ma garanaysaa marka saas oranaysaa maanta dhacday hadaba teetada aanad garanay ba tani way basid bahayd maanta shaqadan tolo maxaad ka sheekeyn doontaa والله وان فكري waxaan dhageystay dib baan ugu noqday global net youtubes waxaan ogaaday inaad interviewga ka dabaalan karto su'aal kasto lagu weydiiyo oo xafida marka anigu marka shaqada raadinayay aad ku celceliso oo adoo guriga jooga sometimes I think dadka waxaan ku wacyi gelinayaa in luqadan waxooga bartaan oo very important noqdo suuqada English wadankan deganahay adigoo technicalkii wax ka garanaya hadii aad yar tiraahdo waxa la oranayaa sorry excuse me at least improve your communication I think for question baa lagu weydiinayaa magaca xageed degan tahay why you interest this position baa lagu oranayaa intaas ay hashaarku ku weydiinayaan laakiin technical question ka waxa ku weydiinaya interviewga shaqada markay soo diyaar garoobaan ayaa la oranayaa xaaladan iyo xaaladan ka war taasina waxay u baahan tahay horta cabsi ku dhacaysa waxaan soo maanta dad gashay laakiin su'aal baan xastaa lagu tiri hadad interviewga ku feelgaroodo lacag kama bixino kharashkaaga ma bixin laakiin aan interviewga marka mar waxaan ku jiray please can you send me feedback exactly very good point feedback gaas wuxuu tusaa weakness kayga moota exactly you to improve next time marka I'm proving next time inaan sameeyo macallin maxay aan idhaahdo halkaas khaladay waa in iska toosisaa that's very good point magaranaysa waana fiican tahay qofku inuu note qorto note taker noqoto exactly you cannot take haddaad ka tidaawan tagayaa luminaya waa minaysaa waxa shaqo meelaysid waa adag tahay inkastoo aad u caawsay reference loo samaysay oo aad loo gargaartay haddana kumbanigan aad doonaysaa inaad u shaqayso sidii kugu aaminaya waxa weeyaan waa inaad fahantaan between you and them محمد سؤال هذا جاكتي جوابتي رنتي هذا هي متاع قفك إنه قاطع نود very important سألت سؤال هذا ما أنت كوسا نقطة كوسا بتاعي بلاد كوسا نقطة ولا جوابتي لما يكون ثلاثة والله غنا تمام هدي حتى شغلة أدهلي ويدو ولا الوقت واي الوهلي واي واحد هو ويدو مستيك سمسات كراسة ما هذا الشيء هذا كان give me feedback أوكي أنا هدي أنا شغلة معناها أدهلي واي وواحد بقى أنا need to learn ما فهمتي and get ready for my next interview. I know. So بدل كذا كعوانية maybe نسند عدنا من على ذاك الكود لكن at least يحب سنين محيين تسمع. Yes, of course وكسينيا. هذا any interview مرتو feedback وكسينيا. Okay. وحقولنا يا ديسبل خلدي stage كان هذا صدق كهذا. ويكون شيء يعني. هذا فائدة كتاي. مركا هذا هو حبب ملوس قريني سين موقتي. لعك هذا ما بحسه لكن خبرة بهالساية كرسوني. أقول حكى لكل محمد ويجي نفتح لما تفعله ويكسر بستين وقت يكسر بحين ماشي كوي مادين أبي قف كلياتها يجي لكن واتين والله وصدق وأفرق. طيب بسوق النت. وقت أبي كاب حياة وحكبرا. وقت أي كاب حياة. سماها كلينا وقرابنيس يجي نفتح ذا وربهين إن يقف كوها بنشغلان إهلان. معلن تكلا أن وحنحصيا أرن كلام دعاي مركن interview المري يقول كم مري مكرنسا. مركن قرن عادي أسكحنا وقتي. أردنا وش يجي وقتي. You have to be smart وأنا مركز أسكتها. أنت ندوشة هوست ولا ماركة وقتي أنت ندوشة وأنا تحرك مع مش بس كحنا كرتها موتي. ناكتو حاجة قلت لي متقنع. ناكتو حاجة قلت لي يعني smart close ما تحسن. لا شغلة تاسك وين. برشلونة كميتاي. برشلونة كميتاي. لكن ده محد عاي. أنا قلت بجامات هوست حلان. سوير واحد ولا وفهمي تريجي ممتاز بس قبل والله شيء كنت حكوري نحكوا شو من فيديو كشوابي ويسكونون قلت لي أديداس تيشيرت بحرنيت مركز قلت لي واحد دونيا سمارت
adi waxaan ku maxay u sheegi weyday بنت كذا أشياء مرة حتى تي في هذا قاعد كمان النقطة مكاس راح يسردك كهذا تي في هذا أو سود كوتا لويس كهرنية إن يقولوا بسنين سود كيفول كهرنية انت تدوش بحدا ماشي بقى أنت روح على الدش وحكي وتا وشاتي وتايدي سود كي لكن هو صح رجعوا معاويس انت اللي بلعب كادو انت اللي بيردي ما بجينا ما بجينا ويقول على دانيغا dadka u sheegaya waxaan doonayaa ma hadii maqlayaan dadka Soomaaliyeed meel soo joogaan marka soo interview maraysan hadii lagu leeyahay guriga interview baad ku maraysaan at least waa inaad smart clothes on the top xirataa waxaan meeshan point muhiim ah muqanaya waxa dhacay pandemic waxa la galay bando dad badan shaqadoodii way waayeen laakiin adiga macnaha waxa sameysay waa very smart move iyadoo dadkii kula shaqeynayay oo shirkadda aad joogtay ay dhici karto dad badan in shaqada ay waayeen adiga waxaa la soo baxsay shaati cusub waxaa dhahday from now on waxaan ahayba waa IT engineer how muhiim ay tahay qofki inuu bedesho xirfadda uu yeesho xirfad ka duwan especially marka waqti adag uu yimaado macallin waxa dhacay marka shaqeynanay shaqadeedii hore aad baa laga jeclaa waa la tixgelin jiray sida managerada la tixgelin jiray waayo meesha sometimes ana control jiray manageradu kullu dhibata jiray 200 ka qof shaqaalaha la shaqeyn jiray ana saacadaha u qori jiray lacagta xisaabta u diri jiray waxyaalo badan ma qaban jiray health safety bay bareen fire brigade nimada ay bareen magaranaysa macallin waxa dhacay markan ku wariyo ka tagaya wala bari dhibaato ay geliyeen waqti waxaan ku yiri shaqan helay IT engineer baan noqday guys waa maasantiin inta letter official aan qoray waxaan ku yiri waa maasantiin sidii ficnad isku soo shaqeynay iyo opportunity aad siisaan laakiin wixii imika ka dambeeya I'm gonna move on baan ku yiri moqtay shir baa la galay maxamed kumiliga qof islaan wuxuu ka tagay xaqaraysa way yaabeen waxa la yiri أنا مركي جوهرين على مش تشوفي تد سومالي ليش غنجري ترى سومالي سكير كلي لنا هاي شيخ مصطفى أمين ودان عندك سنة أول سومالي سكير كلي لنا هو درايفر أدوك ماشى هو درايفر ولوري تاكسي درايفر بس درايفرز هذا سكير كلي بحموتي أنا وصلتك أنت إن ذات كان وش ثمين وعيقرين أهدي أبران أنا جايز شقويك ويبرينهم ما هكلي شغلاس of course وحلان of course بران تاي إنه شقيستو معنا عديس وكوبيشو بيل وكسر صارتو لكن وأنا كيف كنت مستقبل كحاجة الرسول سو حاسب بحدود تشقوين كان هذا مانوال كأو لقى شقيني حتى بوقع نقطة التاكسي سووا دوله يبرد سووا دوله يصاب حياة عم لوكا كمان تأخذنا أمازون ويتجابني وانا كي يس مع الواحد عاي إنه مودي سومالي اللي شقيني والله أنت شغال مركز صباح أنا ودي لما حكون شغال أنا جلاس جاس تجيا كل جيجي ما أدري سكول بنا 10 مسؤولين أنا ولا يبشرن أنا حنا بواقع بحس كلام مشغول زي ووينا سيسي أنا بوقت تقنعوتي وتو بيك موتي وحيقول هذا أنا وحنا مسكح هذا المقابل سين يا فاتحة مرني عجيب شقري كان دايما يجيب دعاي opportunity بدنا أي تي صباح ذي بدنا شغل الرادين يا صباح ذي interview يجي أفراد ayaan laba shaqo ku helay mid waan ku imiday waxaan ku ri kaama qaataa ma ibad igu tiri midna guriga tii guriga councilka Lincolnshire County Council ayaan markaan ku guriga nooga shaqeey markay dhaadeen waan farxay waayo interviewga markii laba su'aalood baa lagu siiyay ilaahay baa qoray mogtay waxa lagu yiri qof caroonaya sidoo dejin lahayd iyo qof miscommunication sidoo la hadlay ula dhaqmay ana ka shaqeyn jiray customer service waan garanaya mogtay intii ma muslim ma runtii mogtay Birmingham jooga ayaa wareysanayo Ali Khalif something la yiraahdo oo Pakistaniya laakiin engineer gurina waxa uu yiri bas enough we had enough miyuu yiri mogtay waa yaabay maxay enough muxasili mala terminate ku sameeyay ka ma haday interview waxa sida kan garkii la wada daranay oo dheers goobnon aniga la yaabana isla ورنيه ده أفر انترفيو بعد كشيء لكن عبد الرحمن أنا كان كحسي وداوني يا هوب من داوني عبد الرحمن إنه مغلي أنا ملينا يا وهذا تاني يحب مريم مركا أحسن عبد الرحمن مين يتشبنه أبي محمد أفر ترى مرتين عبد الرحمن everyday عبد الرحمن تكلم ونيك بالرجلي ويوم شقوها لا وقتها أنا كشقان هيستموتي وحنود دي يوم تقرنصها وكشك شغال سيكود وحيد 6 days مع الموضوع هاي مع لو سوى وسكرت شني تاو حق دار من مالي وتجي ملها حق سيري قبل كنت على وتجي وصو وتجي عبد الرحمن عيار ما ممكن وإن أدب من الحصي عبد الرحمن وجبهد وعادي ما عايز عبد الرحمن با
Abdullah had the video is on YouTube currently one of the best videos, so go ahead and watch it. On YouTube wuxuu ka xusay uu sheegay uu ka sheekeeyay waxana aad u badan dadku haday dhageystaan ay ka helayaan macluumaad aan caadi ahayn sababtoo qof noocaas oo kale intuu ku yimaado ku soo noqdo ku dhaw qaladaadkaas aan sameeyay waxaan ku faa'iiday xagga tag wadada kale meesha waa one way system macnaha waa information aan caadi ahayn aan wasaaabta u qabana barnaamijyada hadda maxamed gale ka hadlay ma sha Allah iyo dadkii koreeyay Maxamed Umar iyo Abdulrahman iyo a lot of people ka sheekeeyeen عبد الرحمن محمد عمر اسمه داوني اول مالين ما توقع او داوني محمد عمر بس aad shaqooyin ka raadin jiray marka group aan waa isku xidhnay asatiin shaqooyinka isku dirdiri jirnay aad iyo aad inama aad u fiican weeyaan dadkan aad bay caawiyaan aad bay maasan madaalaan marka ninkii baa igu yiri niyo enough two question goon degdeg interview kalanay ana kugu soo warcelinaya waxa sida maantaba laba su'aalood kaliya buu ninkii meesha ku hayay muxuu jeedaa maanta gidan suuga saxnaawti وسيله بيستدي هذا لا تشك تني تو حكون عادي تي شير واحد حرنتاي اديداس كوريga soo dhigtay sawirkii soo saaray koona lagu maray in sida sheegaysa TV-ga marka la aado waa soo xidhay ninkiiba waxaan aaday Boloni xaafadda agteeda meel Boloni lagu ciyaaray inama Soomaali ma sha Allah ayaan tagay telefoon ka ciyaartaa وانا waxaan ka ciyaaraa dhexda khadka dhexe la number 8 gool ka dirnaa la sabta soo dheeray waa dheerta meesha bas basket ka ciyaaray fooligo dadka ay raacada ku mid qawanay noo qabo waa ciyaar jiray fooligo ciyaar jiray sportiga macal suuliga ciyaar jiray that's good that's why you have to fit macal waxa dhacay anagu wiilal Soomaali agteeda meel waxa jira garoon guriga xaafadda deganay garoomo lagu ciyaaro la kireysto Soomaali dhamaystirmata bas wada naqaana moogtay أنا مرمنا أتى محمد عمر سامي ونجري ونجري هالكاس كبدة lagu ciyaar jiray ka أنا halkaas ka fadhiya tagalaan waxaan dadka baaskiilka xayaa mugti cycle-ka ay xayaa mugti أنا baaskiil wato kubadda ciyaaraya ay telefoon soo dhacay waxa lagu yiri hello can I speak to Maxamed Geelle markaas ku yiri speaking markaas lagu yiri congratulations shaqadii waa heshay wow baaskiilka ka dhacay waxay shaqadii ku wadsamaha IT ها واو نكي جرك لهان كلا كان وجهدا لبس فعلته كويدي نيجاتيف ka dhigay ilaa aan positive ka dhigay waxa la yiri shaqadii next monday ba bilabsa I think reference kan ku soo diray ku soo hadlay ha reference-dii baan buuxiyay dhibaato hadaba dhacday ninkan Geelle office IT hore uma shaqeyn laba laptop gaari faan la cararaya iyo desktop ay keenay ماشي ugu celin macnaha shaqada hadda ah heshay ugu siiyay wuxuu ahaa kamaniye waxaan ka shaqada markii ugu horeysay waxaan ka dalbaday Microland okay waxa weeyaan waa company weyn IT Hindiya la Ingiriiska Birmingham degan headquarter waa Serco وسيركي بارتنرشيب لي سيركو waxay ku haysataa councilka linkii city councilka ay ku haysataa contract as IT service desk iyo marka waxay supply gareeyaan I think linkii waxay ku taalaa North East England Sheffield agteeda 250 meel bay North London ka xigtaa laakiin aniga guriga la shaqeeyay guriga soo adigu xaafadada jooga waxa u shaqo tagaysay 250 meel loo soconaya macal dadkii guriga igu soo booqday u qaadan waayeen inaan ku ciyaarayo amazing band bas sheegay waxa dhacay waxa la yiri training bal ku siinaya guriga dhexdiisa oo documentation balan bal siiyay 2 weeks intaan shaqada bilaabin dadka waxaan ka wacyi gelinayaa marka shaqooyinka tagtaan waxba ka baqina 2 bilood ama bil gudahood bad training bay siinayaan idinku aqoontiina leh training kala leeyahay ku daraya dibadna wad la qabsanaysaa waa qaadan waayay waqti guriga ka shaqeynaysaa waxay ku noqotay Rio ninkii Geelle waxa la yiri guriga ka shaqeynaysaa councilka First Line Support bad ka shaqeynaysaa waxaan maxaa qabanaya أنا شغال سيء. What kind of job؟ حتى أنا أول أتي جت حفيز كذا صباح الباكري جت. وكولوجرينشري كلوكين فينجر. فون نمبر لبنا لك كولوجرينشري هذا تو وايتهم. الحمد لله حافظ على قصة شغلتك. ما كلوكين. ويا وقت وقع يوسف حوا ويك. صار محقق من ساعة. رجال أنا أقول عليه موتي. يا عبد الرحمن مالي محمد عمر والمغلى يعني عايز كوري. نيو قولي كان شغال ياي. markii isku dhaad warshada qaado anagoo weynita nasiib badnaday sankur wax I have no clue wax ka shaqeynayo tolo ma computer jibinaya password garaacaya kaas ilaa hadda kuma cadda macnaha iyo wada dhacsana wiiga digi weeday waa qof imka 1 million dariiqa ka loo kale uu ku naxaya moogtay shock bay ku dhacay moogtay adu waxa lagu yiri shaqadii training baa la siiyay waa la baray
dadkii baan ku yiri wada anigu gurigan ka shaqeeyayo Soomaaliyeed ha xagee ka shaqeysaayo horta shaqadeedii baan ku yiri ka tagayaa wax waa la yaabay maxaa looga tagaysaa niyow iska joog lacagtan ku kordhinayna lacag fiican waxaan ku yiri anigu ma garanaysaa that case is close is done decision maker baan hayban ku dhahay waan xidhay waxay ku dhahdeen shaqaad waayo wad nagu soo noqonay هذا بريتمية Soomaalida meesha shaqeynaysi maxamed uga mugti ya صح wala macallin maanta waxaan u diray aniga interview galay way yaabeen hambaliyo sawir waxa soo dirtay WhatsApp-kooda wada dhigay ka sheekayno markaas ay yiraahdeen saaxiib waa ku dhacday nin adag والله عجيب ما شاء الله mugti waxaan ku yiri insan idin la hadlayay oo ku lahaa why you going to security job door supervisor Uber ka shaqo moodeysaan 20 hours gaar ka xaynasaan nolol maaha waxay ogaaday in IT-gu tahay nolosha ugu fiican waqtigan qofku lacag ka sameyn karo Why do you think محمد ساس؟ macallin aanu shaqo ka shaqeyn jiray 4 o'clock baan kici jiray aniga shaqadu way dhaweyd gurigeyga 20 minutes bay jirtay haddana waxaan ahay anigu dadka earliga iyo ilaawad habsaami 4 baan kici jiray salaada subax baan tukan jiray marka salaada subax tukado buuga nadwaga iyo ay blaaska yar akhri jiray 20 minutes amba sawiraan ka qaadan jiray marka waxaan meeshan ku iska akhrisan jiray waxa dhacay dawad kala haysaa wad habsaami traffic baa dhici shaqada guban haday doonto shaqadii baad tegaysaa waxa tahay qof عامل ده قف لو حمالنا يو او كمبل درب adag de ma garanaysaa lacagtii inaf maaha macallin oo financially IT-ga lacag gaaraysa ma jirto in dadka taxiga sameeya dadka lacagta IT-ga haday maqlaan way ka soo jabi lahayn laakiin ma oga anu marka u sheego way naxan ma dhacaysa gura waa kan gura bay sleepki waa physical touch baan tusaa ma un ben wax magacay marsa ha bay sleepki soo toonaha adi maxaa qabtaa wigi maxaa imsa saacad ba shaqeysaa ani 7 hours and half baan shaqeeyaa lacagtaas ay soo gashaa ma garanaysaa markaasi waan dadaalay baan ku ri short no one mar meeshii aan haya dhakhtarkii waan haya waan ku ri dawlad baantiin aad wax ka soo barataan waad imanaysaan dadaal bay u baahan tahay marka IT go very important والله محمد waxaan xoog saaraa in dadka Soomaalida mindset-kooda inaan bedelo sababtoo qofka bini aadamka ka maskaxiisa bedeshin macnaha wad hagi kartaa wadihi kartaa xagga aad moogtaa xagga wanaag oo tilmaami kartaa isagina waa soconaya wala mid keenta in dadka adigoo kale halkan ku casuuna adhano Soomaaliya maanta adduunka saamoodaan ma aha shaqadu ma aha kaliya in laga shaqeeyo warehouse ama retail ama shaqooyin kale manual ah waxaad sameyn kartaa shaqo xirfad ah skills ah muddo gaaban ku bixinaysa oo si fudud shaqo ku heli kartid lacagna ku sameyn kartid dabcan ma dhahayo qof walba IT ha sameeyo laakiin waxaan leeyahay IT mustaqbalka waa meesha loo socdo hadda caafimaad aad baranayso hadda dhaqaale sameynayso hadda macnaha sameynayso in aad business oo kale waxaa muhiim ah inaad wax badan ka fahamsan tahay aad taqaanid maxay IT haddii IT xirfad aad ka dhigatid ma kala sii fiicanba lana adduunka hadda waxaa soo socda qofka uusan IT uusan ilaa xad uusan aqoonin foundationkiisa in nolosha uu ka dhici doono حاجة جناسية حاجة برشلة حاجة شقة ما كل أتكلم دول تعرف كل ما خبص ده معنا دليل صوت معلن نبض السلام كسينا يعني وحيالها إنه قفكو أي تيجي برتوحة نولش يسكت متى ما تعرف أي تيجي نولش إنك متى قفكو سمارت فون بستعمله every day وأي تي أهم من أبليكيشن بو إيجا أهم من السوشيال ميديا كتيرة وكان في أي تي ما قرنسا ونولش إن قف ولا أركز 24 طريقة صعوبة ما مرتاح كفرة أو أركن هريس وحكي داعية يا dadka Soomaaliyeed waqti gooda waxa ku jiraan social media haday ku dili lahaayeen 2 hours kaliya haday in xabartaan waxay noqon lahayd man malayna intelligent people in the world dadka Soomaaliyeed waa kala farsan very smart waan isku daydaan aniga markaan guriga shaqada ka helay waa lagu soo jabay hay maxamed tan oo shaqeeyay shaqada ilaa maxamed shaqadiisii kooda hadda ka shaqeynay maxaa qaban jirtay maxaa sameyn jirtay first let's support ka shaqeyn jiray councilka waa la soo wici jiray labada cisho ugu horeysay dad wanaagsan baa soo wacay laakiin maalin saddexaad bay ugu darnayd nin carab leh markii soo wacay oo shaqana aan rabo inaan u qabto ya lama fahmayo sheekha ninkaasa igu soo hagaagay waxaa jiri kan waa lagu soo dirayba kan waa lagu waa miro waa sparaya lagu soo dhigay ninkii baan ku ri kana taginay markaas uu yiri TT waan garan waayay TT wuxuu jeedo ma teamba ma tomiba ma tanga markaasaan fikiray moogtahay markaasaan kuri kana tagiyo laptopkaaga asset tag lambarkiisa 4 lambar ii sheeg markaas waxaan ku shaqayn jirnay LCC Lincolnshire County Council 3456 lambarada aan casalahay wuu ii sheegay moogtahay waan fikiray waxaan kuri saaxib codka mikrofoonku wuxuu yahay magaranaysaa marka I want to fix it wait markaas uu come to you biguu moogtahay arab laa waan yaa soo shaqaaleysiin macna aniga moogtahay
waa fikirayaa intaan moogtahay markaasaa waxaan ka kacay deskay officekeygii waa istaagay daaqada istaagay 2 minute moogtahay fikrad baa kusoo dhacday fikirkaa waxaan ka helay global net youtube-yada mid kamid ah oo ma iska daawadaa marka guriga iska joogo moogtahay halka dadka filmada daawadaan you know solution is very easy exactly markaas haddaad tin marka weliba aniga ninkan meesha ugu jira telefoonka ugu jira waxaan ku leeyahay wuu maqlayaa moogtahay isagu wuu maqlayaa inuu clear laakiin aniga kale issue trouble baa jira something codkiisa baan fahmi waayay kuma oran karo carab laada kuma garanaya iga tag waa la qabsanayaa moogtahay markaasaa ku yidhi okay my friend waxaan doonayaa inaan laptopkaaga connection as a remote baan kusoo gelayaa can you allow the permission markaas yes wuu siiyey markaasaan ogaaday ninkan in la idhaa team Rollins saan ku yidhi haddaba dee ninkii waa inaan la communicate gareeya ma garanaysayo xal kala keenaa waa fikiray haddana remote-kii waa la wareegay desktop-kii moogtahay aniga controlaya notepad-kan furay igu soo dhacday notepad-kan furay markaan ku yidhi microphone-kaygu wuxuu yahay markaa WeChat oo kusoo taab garanaya that's amazing idea ninkii baan ku yidhi can I take your name markaasuu ii soo qoraa markaasaan ku yidhi waste the issue markaasuu ii soo qoraa screen baan ka wada hadlaynaa markaasaan ku yidhi okay aniga fix garanaya ninkii feedback uu soo diray wuxuu yiri that guy is who's the Mohammed Ben buu yiri ha ay managerkaygu u sheegay nin fiican managerkaygu wuu aaway managerkaygu waa wareystay ninkan waan fahmi weynay how do you understand markaasaan ku yiri walla kaftamayo waan fahmay managerkaygu u sheegay sidaan u sameeyay qoso isku dirdiray moogtay walla clever baa tahay moogtay markaasaa maalinna waxay ku dhacday shaqadeydii saddexaad markaan week joogay Monday kasta gabar bay soo wici jirtay amro ilaahay passwordkii aan siiyay ma garanaysaa Windows-ga akalama hadda Windows 11 ma siiyay wiilowda waxba soo cabtaa way saxataa Monday morning way soo kala hadaa telefoonka ay qabsato hab daska soo garaacdo iyadoo ugu horeysa markan hello good morning ilaaba waa Mrs. way baratay hello how you doing I got some problem gabadha mas barano wala sheekaysto waxaan ku leeyahay listen how many kids you have waxay ku tiri 3 waxaan ku ri koogun magicii waxay ku tiri Alex okay passwordkaaga waxaan ka dhigayaa you remember that saddex yeelan way sataa waqti mad fatmaan 3 kids bay sataa inankeeda weyn saddex oo sameey password dib igu ma soo noqon waxay tiri the girl is a good guy shaqooyinka waxa ka dhaca waxyaalo aan filayn moogtahay qiyaas ahaantiisa ka dhigtay waxa ku fahmi kartiyada go'aan marka soo shaqeynayo ayaa familigayga iyo ehelkayga ayaa guri shaqadii mad ka tagtay hore ويابين كانوا صراحة بكلها ما أنت حافظنا كده حين يقولي جو وشغينا يا وكل شيء قادر كيف أقول لك نلش شوقي قادر كيف أقول لك أقول لكم بكرة الله يوحى قبضة ما قانع من الشيطان بالله حلا أذكر نواز أدرتي وما صنعت قشرايو يدبت هني نقطة عندنا ماركيو عندنا الله الله ويقول هذا اليوم لابتوب كان الله الله سوى كشرة مرة أنا وحنا كله كيف كواي بالأهم أورت أدر أو حبشة كم وضعي مرة سو حافظين إيه اللي يقرأ نقطة عندنا كي محمد ها إنه شو شيء إنه شغل اللي إنه ما كنت دعوة بوليس الله الله ما قرناه حلولي أنا كوي من النهاية حقرنا ساعة إيه الكي يجيب حافظ يجي يمدي وحلقول بحد كشقينا شغلنا هيا وحلقول كمبيوتر فرفران إياه ما تجيبني محمد شغلنا ساعة ما أنا وارد ساعة سانكوري ما أدونك ولا تجي آيفون 6 يا آيفون 13 مسكوميت با ما يبي يقول هذين أساسا يمكن الله شقية مركز سانكوري ها وحنكوري ما فهمني دقيقة سانكوري أنا بروح عن كشقية كمان راجعين كريه وحي لما يتعي نرمية لقول دول كوريجا نرمية حول الرأي بنقول دول كوريجا عن عدو تابته وياريا أنا حقين هذا ما حقين هذا مركز صاحب يقول له صاحب يلا markaas la yiri waniga ku bilif kareynay laakiin waxaan xaq soo shaqeynaysaa san kuri waa cilmi la barto waxa buug halka yaala ayaan anigu ka soo bartay marka waqti baan galiyay marka xafiisadan dad ma aragtay ma kulidii la soo hadla xafiisiga joogo hebel ku raab hebel baha way isyorday waxa ku dhaadan can you tell your address first line date of birth telephone number waxba security question la weydiiya ana saasan ka shaqeeyaa markii dambe la yiri war ninkan uu naga horeeyay sultaan dooranayna naga dhaafan ninkan
Somali community waa mucjisooyin caadi moogtay waxaan bilaabay wacyigelin xaafadan deganahay areadan deganahay in dadka dhalinyartaan la sheekaysto aan ku idhaahdo shaqooyinkan aad haysaan shaqooyinka fiican baanu haynaa halkii wax lagu soo baranaya waan hayaa horta waxoogaa dad waan soo kaxeeyey maasha allah waan ku guulaystay waan tusay in shaqadan sidan tahay waxaan tusaa dadka job serve oo kale 18,000 job baa la soo geliyaa 18,000 jobkaasi haddaad 10 ablaygaso mid baad aduu leedahay calafkaagii mogtay laakiin wuxuu dhan ma waayi kartid aday kugu xidhantahay kartidu marka waxaan kula fadhiga ka kaca taksiga wuu soo xidhaya beri dhow bahalo duulaya mana mogtay uber duulaya laysankaagu waa valid ciduma baahna taxi doonaya laakiin iyagu IT waxay moodayaan dadka Soomaalida markaad macallin wacyigelinayso wallahi xasla macallinku nasiib badan yahay waa dad badan baad u sheegtaa iyagu ma oga waqtiga haystaan mogtay IT-gu way ruud badan tahay intaasoo waxbaad qaban kartaa because waxaan ku ogaaday marka shaqo tagay intaasoo training aan qaatay saddexdii koorsi ugu horeeyay dhigtay ayaa waxaan oo dhan wada cunaya ha uu soo koobay gibigiiba wixii kala siyaadana bartay wallahi aad muhiim u tahay in dadka Soomaalida ma taqaana loo soo koobo wixii oo wada gaaban la tusiyo la dhaho macnaha ABC hada inta samaysid you'll be that stage then kadib waxa samayn kartaa maxay kanika kadib waxa samayn kartaa ila wixii shaqada IT waa gradual hada shaqadii kooda ka shaqeysay oo ka tagtay tilmaad baa joogta oo soo soconaa insha Allah waa ka shaqeyn doontaa mustaqbalka meel baa sii socotaa waa imaan doonaa marka dadka dibadda ka jooga ma fahamsana IT qaabka u shaqeynayo wana mid keentay in barnaamijyadan iyo kuwa midka aan sameeyay maxamed si aan iyaga aan wacyi gelino xiriga hadda ka sheekeynaysa waa xiriga bandamiga oo dad badan aysan ogeynba waxa jira caalamka soo shaqada xaafadda ma ogeyn ku cusub tahay imkaanada jiraan isu qabanna maxamedka ay yaqaaneen shalay iyo maxamedka maanta saan noqday isu qabannaadahay waana midda dadka aan ku dhaho waa inaad change samaysaa waa inaad samaysaa isbedelkaas waa adiga ka bilowda qofka isaga isbedeli kara aqoonta bedeshaa waa maskaxda bedeshaa waa inaad qaabka u fikiraysid aad bedeshaa وان بدك اصحابها لا بدشا معلم سميتها اصحابها هذا سميتها محمد يا عبد الرحمن يا ابو هرنتاي او اسكو اجنداتين اسكو qorshaatiin macna waxay ku dhacay issue Soomaalida dhexdeena maaragtay waa dad fiican Soomaalidu is caawiya laakiin waxa xaqiiqda laga hadlayo ma qaataan ma gasho adoo ma DNA-ga Soomaalida ma fahmi karo ay ka raali hadaan laakiin anigu waxaan arkay dadka markay ku dhaadaan maxaa qabataan ku dhaa IT engineer banahay inuu beero shaqo u qataan magaranaysa waxa ku dhaco how oo maada ba jaamacad ka soo baxay another point very important Mohammed waxay ku leeyihiin qof jaamacad ka soo bixiyay oo jaamacad aan soo qaadan oo shahaado aan wadan oo midii IT aan meel u tagin afraas baan oo tagtay laakiin waxaan ka hadlayaa inaan jaamacad ka soo baxay say shaqo ku helay IT Mohammed taana galaani macallin waxay ku yiraahdeen anu waxay ii yaqaaneen administration or business administration HND soo qaatay oo computer ba shaqo ku lahayn oo xisaab iyo lacag la xisaabiyo iyo ID la keeno qorqora ay ii yaqaaneen waqtiga ninkii odayga ahaa maxamed ahaayo IT engineer ku shaqo tagayo CV IT engineer sita waxay ku yiraahdeen mashakadii hindidaad keentay hindiga magacda bedelo oo qof kale oo dhintay mikiisa ku soo qaatay mugti ma yaaban ku waxaan ku leeyahay aniga shaqeeya oo shaqo ku jira ayaa waxaan bilaan gareeyay aniga shaqaysanay horta inuu wax barto maalinta ii gaadhana shaqadan ka tago shaqo kala helo ayaa sameeyay dibadna waxa uu yiraahdaa go'aan adag baad gaadhay sidii ku dhacday runtii step by step baan uga sheekay marxaladayda soo maray iyo sidan wuxuu sameeyay iyo maaragtay sidan aan halkan maray iyo iskuulkan ka bilaabay iyo dadkan ku xidhay iyo meelahan ka guuray deeno gobollo kale ka soo guuray dad kale ka soo guuray ma garanaysaa dibadna waxay u qaadan waayeen how short adigoo jaamacad ka soo bixin aad engineernimo IT uga shaqaysaa London waan tusay waxaan ku yiri you don't need qualification ma garanaysaa waxaad u baahan tahay practical iyo luqadda IT good barato iyo technical good aad noqoto shahaado cid kuma weydiinayso qofka kumaniga haysta marka luqaddaas fahantaan aad ku hadlayso uu garto sida afka shimbiraadka wuxuu leeyahay ninkan waa nin engineer because typology baa lagu hadlayaa gooniya moogto ma tiiso lagu hadlaya dhakhtarku luqad gooni ku hadlaa moogti dibna u qaadan waayeen runtii caqabadaha iga hor yimid waxaa ka mid ah niyow waad ka hadlaysaa aduu jaamacad kama soo bixine maxaad beenta ku sheegaysaa nin weyn baa tahay sidaad ku noqonaysaa engineer weli ma dhaadhacsanaa ilaa aan tusay waxaan ka shaqeeya iyo waxaan qabta iyo qaab guriga ku casuumaa shaqooyinka qabtaan tusaa waxaan qabtaa way dawqeen oo badanaa indha ma badan kuri war TikTok baad gashaa oo Instagram baad gashaa Facebook baad gashaa YouTube baad gashaa waa intaas horta maxamed dadkina Soomaalida ma taqaanaa dabeecad leeyihiin for last 20 years ka badan ayaan wadnaa shaqadan
waan kasoo bilownay meel aad u hooseysa oo hadda maanta waxaan haysanaaba maxamed iyo dadka lamid ah oo ka sheekeynaya ka hadlaya xilli waxaan bilaabay dadku soomaalida IT waxaysan ka aqoon oo markaa dhahda IT qofku leeyahay IT muxuu yahay oo haddana aad ku shaqaysan kartaa ku dhahay macnoo Soomaali ah umadow ah ayaan intaa xafiis u kala ka shaqeynayaa meeshaas laga soo kaxeeyay till today qaar badan waxay aaminsan yihiin ma dhici karto in IT ku shaqeeyo waxa ka daran waxay aaminsan yihiin in meel Soomaali ay leedahay intaan tagno waxa ugu dhacday IT aan ka soo dhigano inaan shaqo ku helno way adag tahay tilna dad baa aaminsan laakiin hadduu qof ajnabi u yimaado ama hindi ah ama nigerian ah ama wada kale ah yiraahdo IT baan ku shaqeeyaa oo siduu soo qaato isla waqtigii automatically by default way aaminayaan laakiin anaga dhexdeena waxaad moodaa in ay nagu yar tahay is-aaminaada aniga ugu dhacday macallin aniga waxa mar global med macallin Soomaaliya xibra marka ku way u qaadan waayeen war nagala tagbal ugu shaqo Soomaaliga ilaa aan qaaday buugagtii oo videogii tusay anoo hadlayno wareysanayso on global net website tusay on kuuri guys what hurdaan you have to wake up fadhiga ka kaca been iyo isku sheegin Soomaalidu been isku maawilisa hadhow wala kala daraa aboo iga raalo adan ka raalo wala ka yaa walba meel waraabo ku cunaa mugti laakiin waxaan u aaminsanahay aan u niyeysto markaad u istaagto inaad dhahdo ummadaydan ku sameynaya change ama isbedel dabcan waxaa la kulmaysaa caqabad aad iyo aad u waaweyn haddaad taariikhda ku noqoto macnaha qof walba u istaagay in dadku waxu kala dhiciyo ama dacwo ha noqoto ama ha noqoto cilmi kale ama ha noqoto waxay doontaa noqoto wuxuu la kulmaa caqabada aad u badan waxaa muhiim ah qofka shaqada wada inuu dulqaad badan ula yimaado waa inuu maalin walba uu keenaa fikrado cusub iyo macnaha tab cusub oo dadkan looga dhaadhicinayo meesha ay taagan yihiin in laga kaxeeyo la geeyo maxay meel cusub macallin anuu shaqadeedii ugu horreysay markaan ka shaqeynayay community fikrado cusub oo aduna bartimo kusoo kordhiyo technical waxa kamid ah iyagu waxay isticmaali jireen service now marka as remote kan galeno quick access ban ku gali jirnay window dabadeedna aniga network plus waxaan ku bartay Maven drive marka la sameynayo hardware-ka is how to quick easy out sameynayso moogtay iyagu long process bi soo marayeen moogtay open the file check the inscription balaayo aniga right click map drives-ka alphabetical kan eega mid baan siiya save done application-kii way yaabeen هل يقول شيخو how did you learn this one فيديو ولا قدوه موتي أسا شغال أنا كنت جرنا ترين كنت جرنا أيام مايكروسوفت تيم كلا قدوه بي أن وحن سمي مركا أكتيف دايركتوري قاعد نبرتاي إن أديكو أكتيف دايركتوري أسا ريموت استعماله يا ديسكتوب كقفك كله الأيكونكا الهالكن كجا أتكرين كرتو كويكا ايكون ايزي ما حصلت واسمي موقتها انت انا ويا بينك موقتها هذه عندنا توصل تغير اسمه سيرك اي تي سيرفيس كشغيني يقول هاو دي ذات waxaan ku leeyahay show you how to do it di on soo moogtay wuxuu ku leeyahay adigu niyo ma habeenkii wax bartaa markaan ku leeyahay maya aniga school special school baan soo baxay IT-ga wada arkaysaa inuu isma naqaan moogtay marka waxay ku dhahdeen how did you create it waxyaalo badan soo moogtay shortcut maartay loo isticmaalayo maxaa keyboard-ka بس اسمه ربنا لو قريش هذا لكن يبغى بكش غنجر اليوم مركب يقول هذين حاجات كصوب بحذا وحن كل جلوبال نت لا غير عندي اكسوسي لما كان موت بين جامعه ويسوي عنها ويسوي شغله دي كود وحافظها كشقيني الى ما قاودي معلن شغله دي كوباد waxaan helay October 2021 ayaan helay anigoo shaqadeedii hore inta ku jiray ka baxay adiga igu taliyay shaqo hel 6 bilooda ha ka tagin أنا طلعت ما قاطي ما قرأت لكن من شغلين ويجا يا بالبلا ما نقرين وإيش اللي يشتري ما قارن لكن 6 months contract عن حالي وحنا لأكتوبر 2021 كي مارس this year بيجنا ماتي أو contract أنو سميني كانسل كاسي لينك شلي نعضو أي سمينين MDN management MDM هذا أنا MDM تذكر فعلا MDM مكتي يا MDM ما سمينه مكتي أنا بحب هراء واحد مكتي deploying everything ما سمينه مكتي ما شاء الله ما شاء الله marka yaani markay igu dhaadeen MDN anoo soo dhigtay markaan ku iyagu training ba lagu siinay anoo soo dhigtay markaas buugta ku soo hadalmay way u qaadan waayeen waqti marka anigu week waxaan sameyn jiray 20 project oo 20 qof baan deployment u sameyn jiray everything every Wednesday baan u sameyn jiray Monday hadii issue ka yimaado asamaan walba u sameyn jiray marka والله الحمد لله شغال في عم هيد لكن كونتراكت 6 months ونقدر ما تمرك انا قلت لك في هذا شغال كذا ما تقول هي رمضان تبع انا وبانا فدي به يتحنك لو ديارني انا مش كيس محمد الشغال هذه لبعد maxay xageed bilowday معلش shaqadaas markay iga dhamaatay wali arday baan ahaa mugti
laba course baan dhiganayay CCMB iyo AWS baan dhiganay oo naga dhamaatay rawaantii gelaynay marka waxa tiri imtixaan diyaariya aniguna waan shaqeynay aniga Cabdiraxmaan waan shaqeynay every Sunday waxaan iman jirnay Global Net halkan aan ku sameyn jirnay laababka aan isku iman jirnay Global Net Watchable baan iman jirnay iyo Maxamed Cumar halka iga maqlaya marka AWS iyo CCN in koro adag ay wada dhiganayna saddex intayaduba marka halkan laabka ku sameyn jirno week marka noo dhigano habeen ama Tuesday night-ka haddana Sunday-da xaggan aan joogi jirnay dibadna shaqada waa dhamaatay waxaan sidii war rabadaan iska cibaadaysto waa iska cibaadaystay imtixaanadeedii baan iska xafiday break baan gaaday break baan galay because long waxa soo qaatay marathon dheer moogtay sida wuxuu bilaabay ma joojin waan waday magaasa dibadna macallin waxa ku dhacay waxaan apply gareeyay shaqo كمبني ما كان ريدين شقاوني كلا soo hadlay diyaaradaha maartay taawarada diyaaradaha la hadla haga halka aan IT service desk-keedu waa reading headquarter-ku ESP yaasoo ma leedahay shaqa hore laga siiyay interview-ga xabana waxba garanay ma heshay waa shaqadii labaad aan doonayay inaan galo aduu shaqadii ina yar baa heshay waxay ku tiri 23 years old bane ana interview weydiinaysa iyadoo baan ku waalo way baxsatay su'aalaha iyadoo waa la soo qoray aniguna ayada weydiiyay kuwii markay iyaatay laba su'aalood ay tiri waxa tiri ninkan odayga shaqadan uu leeyahay su'aal kale kuma ay sorry my friend ku tiri shaqadan gaabta laga soo hadlaya waya waxa tiri tani yar maxay jeedaa aduu ninkii agency-ga la soo hadlay wuxuu yiri you got the job Monday below okay but sug baan ku soo fikiray waxaan xisaabiyay distance-ka xaafadeeda ila Reading trainka week waa 112 pound shaqadana 2700 a month ay qaadanay oo maxay dadka ku gurigan ka shaqeeyo 2 days we diiday wuxuu guri meeshani meel guri laga shaqeeyo saaxiibow wala timaad xafiiska waa nin guri soo bartay waqti iyo fadhiga iyo shaah soo sameysay telefoonka qof waan hol gareey jiray dadka waqti la ibro xafada ka shaqeysay macallin wallahi waa adagtay marka 6 bilood fadhido aan shaqo physical ka imday waan daalay ninkii wuxuu guri shaqada waxaan ku yiri my friend distance uu iga fog yahay waxaan rabaa guriga 3 sano ka shaqeeyo 2 sano site ka imaado wuxuu yiri my friend Maxamed anoo contract aan haysano oo noocan waxaan ku yiri inaan shaqadiini mar doonayo I can't change my mind sorry maxaan ugu gasho iga cadhado mugti waxaan ku yiri aan London dhiganay West London of course aniga danteeda ku jirto inaan 300 400 a month travel ticket ku bixiyo what you think man ku maxay sataa waxaan ku yiri gaari ka haysto fuelka uu qaali biyo waxaan ku yiri waa 45 miles outside London ilaa iska daayay NHS tay soo wacday oo ka shaqeynaysa Royal Free Hospital NHS ayaa soo wacay inaan bay la soo hadashay waxay ku tiri Maxamed CV-gaagan hayay 1 month position baa soo baxay are you available to take this job ay ku tiri markaas ku yiri yes markaas ku yiri maxaa qabanaa markaas ku tiri technician job ayaa sameynaysaa marka oo goorma bilaabaya macallin aniga kumanigu igama qaaday interview agency interview qada shaqada ku galay that's it that shows the demand معناها الماركت يلنتي agency-ga HR kayga ahayd 3 question ay weydiisay kaliya bas taasi waa xasuusta I remember waxay ku tiri Maxamed are you available now yes are you capable in North London shaqo timaada in field waxaan ku yiri ya family-gayga degan waa imaan taga markasta ma dhibaato kugu haysaa maya what time ma shaqeynaa ayaan ku yiri oo weydiisay su'aal waxay ku tiri 8 to 4 amba maxay 9 to 5 waxaan ku yiri anu early person baan haye 8 to 4 ma qaataa haabay ku tiri hadda shaqada hesho waxay ku tiri customer service-ka sideed isku tiiniyo technician-ka waxaan ku wixii weydiiyay waa kaaga jawaabaya oo shaqadii arintaas password waxay weydiisay how to deploy the windows taasi waan uga jawaabay waxay saacad waxay ka maqnayd I think 49 minutes ugu soo noqotay Maxamed you got the job horta email bay soo dirtay congratulations oo yaabay ya ma dhacayse waan yaraya waxa shir ma ku ciyaarsan waan garaacay hi Esma how you doing ka waran situation kaygi Maxamed you got job I'm happy for you next Monday shaqada bilaabaysa ya oo taga ha okay shaqadii waa tagi wallahi ana waa shaqadeedii labaad mugtay waa time kan joogo big organization waxaan la shaqeynaa Memorial Hospital oo ku yaala Finchley Chase Farm Hospital oo Infield ku yaal Ishak Barnard Hospital Royal Free iyo huge one yaabay iyo ka Tottenham ku yaala oo qayba macallin
والله sheekadaasi waa sheeko aad iiga yaabsan tell us محمد maxaa samaysaa every single day macnaha what are the main tasks dadka daawanaya u fahmaan maxamed shaqadiisii maalin walba u qabta maxay tahay day in day macalin markaan tegay shaqada maalintii ugu horeysay waa la soo dhaweeyey waa la sara kacay nin cusub baa yimid dadkii baa la baray koofi baa la soo sameeyey sida ugu rasba garanaya ka daran wow maxay day office waxa qof walba yiraahdo macnaha waxa la yaabnaa marka meesha anta respect baa soo socda engineerkii baa yimid anigu de guriga ka soo shaqeeyay dad lama soo shaqeyn laakiin waa markii koowaad dad dhex galo office baa la sameeyay 3BC kaliya iyo one laptop wow ninkii train gareynaya guri maxamed hayu duun magacayga hebel baa la yiraahdaa saaxiib shaqadan week baan ku barayaa wixii adig inta ka dambe adiga la waayay waan yaabay muxuu ku barayaa talo buugi qalin soo qaatay waqti wixii baan qorqortay waan eegay waan la shaqeeyay shaqadan qabtaa macallin waxa weeyaan horta waa civic center bismillah waa 9 floors wada floor kasta waxa fadhiya 90 people laptop haysta okay waa shaqeynaysaa moogti office waa 9 floor qof kasta cilad baa ku dhacdaa mid ba waxay isticmaalaan iyagu waliba Dell ay isticmaalaan Windows 7 iyo tan bay wali isticmaalaan weer dambeeyaan moogti marka shaqaalu marka shaqada yimaadaan kuwii noo soo galaan sida ay dhamaanaysa laga toban haweenay imanaya mid waxay doonaysaa ina PowerPoint loo soo download gareeyo mid maartay laptopka ID cardka gala koona ka gala cardkana shaqeynayba oo waxba ka khaldan mid waxay ku odhanaysaa marka shaqada waxa la siinayaa waxa la odhanayaa 20 qof baad maanta u shaqeynaysaa oo cilada haysato oo kala horeeya 1 2 3 issue marka gabar baa imanaysaa office-kayga iska fadhiya way soo ag fadhisanaysaa laptopkan powerkan shidaya ciladii bay tusaysaa dibadna waxaan ku odhanayaa 2 hours amba 1 hours horta ayma roos xariifay mogti half day baan dhameeyay soddon maan ka tuuray naagti madaxay qabsatayba war ma waalantahay kan baan waxaan moodayay in waxba la dhamaynayo mogti ila waxaan waa farsamo la isla yaqaano la yaryaraysta shaqada waan yaa waxaan ku ri ay anigu waxaan macna tagtaankan karaba tuwa koob shaqada dhameeyay wasdaafi soddon ka wax xun baa lagu soo download gareynaya image-ka iyo mid power-ka ka xun yahay iyo mid window-gu slow yaho la sameynayo task manager baa tagaysaa performance-ka CPU-ga computer-ka baad rebooting ku sameynaysaa restarted taasi ma shaqa intaas macna job done ninka de IT-ga garanaya way fahmaya laakiin qofkan garanayn ninku muxuu ka hadlayaa warnay waqti Abdulrahman Sawaay Maxamed waxaan ku leeyahay shaqadii de waa easy bay markaas ay gudadeen war wali wax kala ku harsan xogaa la kaadi horta markan technical-kii tuuray ayaa la yiri nina naga xanuunsanaya qaybta telefoonada gal illaa rahmaan meesha horta Afrikaan badan ba ka shaqeeya macna dhakhtarradan eeriyadan Soomaalida waxa ka shaqeeyaan garoobay afar hablo kaliya Soomaaliya soo garaacay way ugu farxeen markay arkeen Maxamed ugu way raadiyaan Maxamed baa loo sameeynaa oo doctor bay bartaan qaarna oo nurse special nurse qaar waa pediatrician iyo wax sameeyaan ma garanay waxa sameeyaan dad Afrikaano codkoodu adag yahay very tongue hard oo accent oo soo dhimanaysan laakiin waan bartay macallin waxa ku dhaam easy hi good morning hebel yoran computer name-kaaga ii sheega username-ka active directory-gan ka eega dhac waxaan ku dhaha can I connect to your computer yes ma ku xidhay ma secure ba VPN-ka yes ana xaggan iska jeeyo khusuus leeyahay markaan ku dhaha can you allow permission yes waxa loo kala wareega imika kuwii soo galaan maxamed doonaa waxaan ku ri anigii baa bad galay maxaa dhacay naagti managerada ku igu tiri maxamed adigu you are very good dadkii waa seexisay maxaa ku tiri san ku ri dadkani issue macallin wallahi waxa ka bartay arrin bagaabi very simple issue lagu soo garaacaya waxa weyn laga dhigaya waxa weyn imika dadkeena Soomaalida hadii loo sheegno everyday yaqaanaan waqti sometimes marka computerku amba laptopku ku xiran internetka slow buu noqdaa waqti routerka ma eegan dadku ma garanaysa amba connectionka baa aba something nin dhan oo doctora oo kula sito sanan surgeon doctors ayaa power ka kicin karila soo wacay aniga oo maanta gidi tan taabo laakiin very good ma sha Allah wala qabsaday alxamdulillah wax badan waan ka fahmay waxaan ku shaqeynaa service now oo ku shaqeyn jiray oo kala NHS mail kan ku shaqeynaa passwordada iyo emailada ka sameynaa waxaan ku shaqeynaa Citrix director wallahi the you name it way badan soo badan mobile iyo
mobileka waxay ku sameynaa android-ga ayay ku shubnaa wax kasta iyo os-ka ayay sameeyaan mobiladoodu ma badnaa meeshan waa nhs oo qof kasta waxaa la siiyey laptop guryaha qaar ka shaqeeyaan maalin week office-kay joogaan weekna guryaha ma garanaysaa maca shaqaalaha aniga la shaqeeya sida xirfadan ku shaqeeya qaar badan baa guryaha ka shaqeeya anigoo lii diiday mogti waxaan ku uri 2 cisho bal guriga waaba gurigiiba iga haystaaba إذا waxaa la qabsatay maxamed oo shaas oo sameysanayo jikada tagayo oo macallin nafista gurigaagii joogto shaqadaadii waqti badan kaaga dhaxayn shaqadii markaad guriga joogto lacag waa baxaranaysaa lacag horta transfer iyo muu bixi jirin boss ama manager dibadda taagan muu jirin iminka markaan shaqeynayno managerada ay timaado waxa ku tiraahdaa okay waan ku caawinayaa break baad u baxaysaa anaa meesha si qabanaya amba qof bay bedela activity-ga waan iska yar baxba laakiin IT-ga very important job weeyaan markaad waxoogaa shaqeyso waad yar baktiin hoos ka baxbaysaa ida kuma nasa xagee aadaysaa xagee tegaysaa sida shaqooyinka caadiga ah masalaad baad tegaysaa shamca kasta tukada anigu lunchkayga 1 hour salaada ku beegaaba yaa ogba masaajid baan kula xalayna meesha ha dad badan inama cabdikariim ka shaqeyn jiray in la yiraahdo inama badan Soomaaliya igu yaa igu horeeyay oo dad badan oo muslim oo waxa Pakistan ka shaqeeya oo ama Turkisha oo masaajid dhan baa jira lagu cibaadeysto غير ما شاء الله الحمد لله وحكى محمد ماشي كم مقنع اي تي انه هي بروجريشن كيسا كوك انفاس ابتو شغله دي كولا كسو شقه سليح بلودا هاي طبعا شغله رباد هذا اجوكتو شقاها وكفي عنتها اي بليف لعقها وكبرنتها سو مدة لح بالايه waxa ku sameysay isbedel aad weyn tan waxay tusaysaa IT-ga in shaqada ay fududahay in qofku uu haysto flexibility oo ku dukanayo meesha doono aadayo in xaafadu ka soo shaqeyn kara iyo in lacagta ay tahay lacag macnaha markasta sii kobcayso oo kor u sii soconayso dadka dad u sheegto waa qayr macquul kuma aaminayaan they never believe you wuxuu oranayaa way yacni jar way ka buura ka daadan lahayn ma fahmayaan alxamdulilah dee adana fahansiiyey moogtahay oo dee abaalkan ku haynaa moogtahay insha allah waan ku ducaynaynaa محمد مستقبلك هذا وحكسو شكيسي شغلاتي كواتي لباد وحاك وهالشيء ما دام من الطبيعة تهي هذا مدرسة شقينا عقبات بنا نسوق المي محابي كرتا سؤالي وقت كالبودي سيدت كداوني برنامج كانوا في الإسلام وهذا main difficult questions هذا نقطة technical هذا نقطة HR بل دتك عليك وحي داون دونا برنامج كان سيدت في الإسلام والله horta waa very important question macna aad baad maasan tahay waana waxaan halkan maanta u nimid inaan dadka u sheegno caqabadaha amba su'aalaha lagu isweydiinayo shaqooyinka sidaad moodaysa maaha laakiin qof kala test karaya bini'aadanka waa human behavior tricking baa lagu sameynaya wax la yiraahdo su'aal baa lagaaga dhigayaa adag laakiin haddaad istijiso waad ka jawaabaysaa aniga waxa lagu yiri animal haddaad tahay maxaan samayn lahayd if you are animal what kind of animal you are أنا ما أكون فربنا مروري سوالي اللي بس قاعد أقول اللي هو one of the lazy كم قلت لاين كو وسوالي ده اللي هو lazy واحد ماله قال لا أنا مكتوب واحد كتب سنة يعني جيسني ما واحد يديك واحد يلا يح كلا فرماها مكتوب اللي هو حمد الله مكتوب والله هو فكري أرتا أنا واحد قام كوشة يوتيوب كان أدو داون شري كلام النت مركا حفلة بري لقبتي إن الصومالية أحمد بلا رامل هنا أحمد يا أحمد توني أيتين كه ها ملاها أيا كشكيني سؤال شالو ودي أنا كساسة خلاص أقول عادي مكتوب marka isaga la weydiiyay markuu ka hadlay animal what kind of animal uu lahaa aniga cheetah noqonaya aniga nin cab baa intuu ii soo fariistay igu yiri okay su'aal ku weydiinaya okay what trick question bigu yiri laakiin wax ku taskaraynaya moogtay basan ku go ahead markaas igu yiri I'm sorry gar Allah ya waa respect min cadan ku haddaad animal ahaan lahayd bigu yiri what can maxaa choose karin lahayd animal aniga sheekadan si ay moogtay markaas ku yiri let me think وحاسبك تقفل لما سوبو لا وين قال لما دقدقه موقتها معلم waxaan ku wariyo anigu hadan animal noqon lahaa waxaan lahaa fastest animal on the earth baan ku wariyo cheetah why be good waxaan ku wariyo waa quick from point A to point B point to point tab soo qona very quick moqtay waa fastest animal moqtay wax kasta loo diro soo qabanaya waa sida window de waa computerka laptopka fast moqtay you click soo qabanaya markaas uu yiri gaarid su'aal kale uu weydiiyay wuxuu yiri okay qof ku yimiday customer laakiin difficult English language oo haysto maxaa sameyn lahayd waxaan ku wariyo niyow aniga luqad kasta hadduu qofku ku hadlayo waan afkaranayaa baan ku wariyo markaas uu yiri how many language you speak waxaan ku wariyo anigu kuma hadlo laakiin as a IT man I'm professional I know how to understand the solutions markaas uu yiri go ahead he can ku wariyo John did you listen Muhammad what he said so kick by yeah I'm listening waxaan ku wari anigu waxaan sameyn lahaa
hadduu qof ii yimaado ajanabi ma oran qof different language ku hadlayaa waxaan ku odhanayaa oo ingiliishka jabsanaya wuxuu ka fahmayaa luqadaada warqada maaragtay intaan u furo systemka igu qor dabeedna inta koobi gareeyo ayaan google translator ma tegi lahaa by english ma ku bedelanayaa ugu dhacday nin xabasha u sameeyay aniga shaqada oo ku sheegay macallin ku sheegay okay shaqadii councilka ka shaqeynayay ayaa nin magaalada Lincoln Ethiopian yar oo xogaa ayaa degan mogti marka social worker-ka ayaa nin xabashi shaqada keenay turjubaan ahaan baa loo keenay marka isaga qudadiisu luqadda ingiliishka ma yaqaan tii Afrika dhaadheeray ay ku hadlaan Gabrazalan baa la oran jiray waxa lagu yiri Maxamed Leela Soomaaliya ayaa nala jooga community marka ma xageed ka timid dibal guri East Africa guri de Soomaaliya Ethiopia charnay neighbors countries marka waxay moodayeen inaan isku luqadnahay ana ninkan ku listen Ethiopia Soomaalidu half bay digantay laakiin de anagu Soomaaliya ku hadalnaa isaguna Axmari laakiin anigu waan la communicate garaa go ahead baan ku isoo daayay ninkan baan ku leeyahay brother how you doing dananas waxay u farxay moodeen xabash green mooday marsan ku listen waxaan ku furayaa computerka notepad-ka waxaan baartay meesha luqadaada ku soo qor markaas uu keyboard-ka ana ku bedelay qori oo bedelay keyboard-ka waxa ku dhigay nooc wad khalas luqadiisa ka dhigay maxaa ku jira mugti waa uga dhigay uu ku soo qoray wixii ba inta copy highlight ku sameeyay ay google-ka la tagay waa translate gareeyay waa akhriyay wuxuu doonayo dhan markaas aniguna inta uu qoray ayaan inta copy ku sameeyay Axmari ka dhigay uu qoslay ha ويا بروزها مسكولي ما يفهميسا ما فاهم يقولي كل هذا شيء وقت قرطها بيقولي يفهم النوتي مركز سانكوري صاحب اوكي ما انت تحب انت انا جالس هذا يا مركز يقولي ثانك يو برادر محمد وما سنتاي وان كفهمي وخي بانو سمي دوني ciladi computerkii baan ugu shubay wax kasta markan u sameeyo copy baan ugu sameeyaa screenshot baan uga qaadaa arrow baan ugu sameeyaa waxaan ku xagga taabo halka taabo aduu amal buu ka ayuu sameeyay waan email baan ugu diray waxaan ugu soo fikiray favorite-ka waxaan ku halka taabo managerkayga soo ay Mr. Gele you done very good job today what did you done ayuu good marsan ku listen ninkii baa ku ninkaasi waxa siinaya feedback very 100% uu yaabay wuxuu ku ninka waa fikir weynay soo afkartay waxaan ku أنا نيكا نايبس كانتري بان هايموتي مركا واسفهم لنا ماشي أنا قاعد أحيي نيكي يقولي يقدر عيارته بليسو وفرادي هرام بحنا يقولي إيرنا كفصح يا واحد سمي الشيء ها عم كوري how long داري أي تيجي شقينيسي يقولي I think 2004 رام بلاوي هلا مش كده يا موتي مرسم كوري وهذا 2004 رام بلاوي نيكا سوف كريدنا وعم كوري ما أنت ما ندوقين جوجل ترانسليتر بشر oh sorry you got the point thank you very much وعم كوري dadku dhan buu sheegay wuxuu ku yiri guys dadka hadii laga soo hadla Google Translator isticmaala waxaan ku yiri saaxiib ma santahay anu saas sameeyaan ku waa meesha waxay dhahaan ma waxaad hays macna waxaad heli kartaa ma aha waxaad haysato صار استعماشي سو waxa laga yaabaa maanta IT hadda ka shaqeynayso ninka 2004 kii bilaabay inuu wax badan yaqaan laakiin haddana uu isticmaalayo inay saxan qaabka saxda ah ama adiga ma sha Allah creativity-gaadu uu yahay amazing hadda waxa sheegtay dhowr tusaale oo tusaya how creative Maxamed uu yahay how quick macnaha aad go'aan gaari kartaa which hadda IT aad looga baahan yahay maxay inta si socon waxaan u baahanahay this year macnaha suuq isbuuni anaga global ahaan waxaan loo degsan dad badan oo Soomaali ah oo iskuul ka dhigtay inaan shaqo geyno maadaama aad runtii sharci arday ahayd aad soo dhigatay hadda aad shaqaysid gudaha waxa ka dhacay aad taqaanid dadka IT bartay kursooyinka qaata aad taqaanid caqabadaha ugu badan ee dadka haysta ee u diidaya inay shaqo raadiyaan maxaa ka mid ah ma tilmaami kartaa xogaa ha macna cabsi ba jirta cabsiduna waxa u jirtaa haddii lagu yiraahdo webiba halkana oo biyaha Soomaalidu waxa jira gal webiyaha ama ulba lagu eego ama dhagax marka waxaad ogaanaysaan how understand deep yahay laakiin hadda tira waa biyo oo ka joogto bilaa oo lugta ka talaabi kartaa oo jeedi kartaa waxan sax marka dad badan oo arkay dhalinyara oo koorsooyin badan global ka qaatay oo wali baqaya never apply the jobs aniga waan la hadlay asab maxamed ahaan CV baan u sameeyay interview question baan siiyay laakiin ma tiragareen marka waa cabsiduna maartay dadka Soomaalida qaar irbad in lagu turqay ka baqaan marka ugu horeysa la mido qofku irbada ma garanaa mugti waxaan ku yiri brothers and sisters listen shaqada interview-ga iska gala haddaad wax garan weydaan ceeb maaha gada nood ba sameynaysaa
shaqada labaad bawaa labaatan waa arag badan ka soo qaad qof teeritis kale oo kale camal haddaad gaariga maanta ku dhacdo laysankii waa u baahan tahay noogti buukin kala samaysanaysaa waa ku dhacaysaa DVLA iyo kuga baahna you need it adigu adaa u baahan marka sidaa ku baasi lahayd inaad kii ugu dambeeyay lagu dhaha muraayadda maad fiirin oo waxoogaa xaggana eegisay baa dhici karta mogti laakiin dadka anigu waxaan kula talinayaa war brother amba sisters waxa loo xadluus garanaysaan ma jirto interviewada ka baqina waa naxarinta ka baabaysa iyo cabsida iyo qofka ugu horeeya la soo dhaw agency waa qof HR iska su'aalaad minor buu weydiinay everyday ka jawaabaan laakiin technicalka iyo waxa kale oo had dambeeyane horta tahoraha baasaan an agency laftooda iyaga dan ku qabo qofkan inay shaqo geeyaan lacag bay ku qaataan ay lacag ku qaataan so qofka ay shaqo geeyaan of course waxa laga yaabaa x number of kulli agency lu faa'iido dad badan u keenay magac buu leeyahay magac ku leeyahay marka ka baqin macnaha saa sheegtay maxamed cabsida waa waxa ugu weyn ee ka taagan inay hor u socdaan sida ugu fiican waxay tahay qofku wuxuu ka baqaayo inuu sameeyo waana midda keenta runtii inaan dadka aan dhahno motivation aan u samayno aan dhiirigelino mindsetkooda aan bedelno cabsida aan ka baabi'ino dadkii shalay wax bartay ee hadda shaqeeyaan u keenno sababtoo taa waxay keenaysaa waxay tahay in qofka ay ku abuurto yididiilo inuu dhaho hebel hadduu sameeyey ana waa samayn karayaa weli waxaa ku guda jirtaa geedi socodkaadii IT-ga dabcan weli waa ku cusub tahay ilaa hadda muddo waxaa shaqaynaysaa qiyaastii 8 bilood meelaha 9 bilood meelahaas maxamed xaggee jeceshahay in mustaqbalka aad tiigsato xaguu socdaa maxamed macnaha 5 sano hadda kadib macnaha ama ka badan xaggee jeclaan lahayd macallin anigu mustaqbalka waxaan u socdaa waxaa loo badan yahay imka AWS waxaan doonayaa inaan noqdo AWS cloud engineer architect future-keygana consultant inaan ka noqdo إن شاء الله هتنو لهذا إلهي نفتر وقت عمريسي دايو أن جعلها waxaan kaloo jecelahay inaan wado wacyigelinta Soomaalida oo meel kasta joogaan anigu aad baan dadka u dhex galaa waan wacyigeliyaa siyaabo badan baan kula xiriiraa runtii IT-gu maanta maaha guri meel yaalo kaliya waa London Tower hadii la yiraahdo intaasoo machine dhiga oo badnaanaysa moogtay laakiin IT-gu wuxuu noqonayaa waa bad waa nin bad galay marka dariiqad marayso markaad dhex gasheed dhamiso ayaad fahmaysaa inaad dariiq kan marayso iyo inaad network engineer noqonayso inaad architect solution noqonayso inaad noqonayso help desk-kaaga joogayso weligaa magarasa waxaana IT-gu ku fiican tahay kolba markaad shaqeeyso shaqo kale u gudbisaa waad si waxbaad fahmaysaa waad si aad wax korsanayo markaad macallimad ku dumanaysaa insha Allah ma sha Allah maalin dhow baa ugu yiri anigu guriga jooga book aan AWS aan course-kaygii imtixaan xafidayo waxaan markaa sidii imtixaanka ayaan xafidayo waan kala jijibinay waqti markaas ugu bookana waa maxay markaas ku waa cloud baan baranaya markaas what kind of cloud ha markaas waan fikray waqti aan waxaan dadka quick thinking waqti dadka waxaan ku cloud adiga fikrada isticmaashay markaas ugu sida isticmaala مثلا كده adiga hamina application laptop mobile ku jira isticmaasha xagee yaalan xagee laga xukumaa xagee ku jiraan ilaa waxaan dhamma qaadi sidii ma shandad sidato number ku sidatay meel bay yaalaan meesha yaalaan ma taqaana waa cloud spam hore email baad isticmaashaa firdii cloud ku yaala meelka machine ka fog oo halkan aad ka isticmaalayso touch physical touch garanayso weeyaan waa ruuxii baan fahansiiyay markaas uu yiri warniyo ay cloud baan maqlaayay waxa markaas ku dhimkaas fahanay horani khatar taan ku dhaw isku soo dhacnaa ha imika aad isku fahanay marka macallin cloud marka la leeyahay dadku way yaabayaan waayo wixii ma arkayaan machine meel isticmaal markayaan oo la taabanayo laakiin way isticmaalaan firday oo kan email gmail bay galaan outlook bay galaan xagee yaalaan where are they محمد سؤالها runtii hadayna waa ka jawaabtay si dulmar ah laakiin dadku aad waxay noo weydiiyaan qofka ma dhici kartaa inuu shaqo helo isagoo shahaado aan ka qaadan IT way adag tahay inaan ka raadicno waxaan dhahnaa yes waxaad u baahan tahay aqoontii aad leedahay xirfadii aad leedahay shaqadii aad qaban kartid laakiin shahaado aad wadataa muhiim ah bal noo sheeg macnaha qasmiga qofka inuu shahaado u qaato maya macallin waxa weeyaan horta IT-ga markaad baranayso maaha license gaari la qaadanayo Uber la noqonayo bus driver noqonayso train driver noqonayso license laga rabo physical license IT waa knowledge aad baranayso for example qofku markuu quraanka barto sodonka juz quraanku dhameeya quraanka markuu dhameeyo tafsiir buu bartaa oo quraanku fasiraa markuu sheekhu quraanka akhriyo kitaab ma soo qaato dhaqadu ka hayaa mogti marka ninka sheekhiga uu fahmaya
inuu aayadda akhriyayo jiska akhriyayo oo suuratul cimraan halkaa ka wado ama suuratul yuusuf uu fahmaya moogtay marka IT uma baana shahaado la soo qaato cid ku weydiinayso kuma la shahaadada ma sidataa waxa lagu fahmaya luqadan aad ku hadlayso af Chinese kan IT gaad ku hadlayso ayuu ninkan la kugula hadlaya is fahmaysaan marka ninkan kula hadlaya ku wareysanaya isagoo shahaadada la isla gaarin wax meel aad ka soo baxday physical kan iyo component kan iyo hardware kan aad ka sheekeynayso ay isla garanaysaan marka uma baahnid inaad isku xiijiso shahaado iyo shahaado Soomaalidu shahaadada waxay u qaadan jirtay bariga hore caalamka shahaado waxa lagu meel mari jiray oo nin doctora ilaa hadda wasaas dadka Afrika shahaado ma leeyahay waa doctor work country IT-ga qasab ma noqon shahaado ka haysto laakiin mida muhiim ah hadda markii aad macnaha base ka soo baxdo oo first line second line aad hore u sii soconayso consultancy iyo third line iyo ma fahamtay system admin iyo markaas oo kale of course waxa loo baahan yahay shahaado qaadatay already guys I know this I'm certified and waxay ku siinaysaa advantage aad iyo point laakiin bilowga qofka shahaado u haysta ma aha muhiim in badan waa ku celiyaa laakiin dadka is difficult to swallow inay laqaan ma adag tahay laakiin carabtu waxay dhahaan ahlu makka adqa bishacaabiha dadka maka degan iyaga ayaa yaqaan jidadkeeda iyo luqyadeeda markay IT ay timaado guys anagaa naqaan si u shaqeeya IT oo soo wadnay more than 20 years oo soo saarnay thousands of people oo ka shaqeeya dunida oo maxamed uu ka mid yahay so haddaad u baahanta si fudud inaad shaqo IT ku heshid of course macnaha we can help we can direct you we can motivate you and we can show you macnaha the path inuu qofka markuu guulaysto of course waxyaalo badan ayaa guushiisa qayb ka ah ha noqoto dadaal ha noqoto aqoontii waxaan sameynaa wax loo yaqaan daqiiqada guusha oo macnaheeda ay tahay inuu qofka guushiisa uu kusoo koobo hal daqiiqo so haddii aan ku siiyo fursad ah inaad daqiiqada guusha aad kusoo koobto macnaha wixii kuu sahlay inaad guulaysato bal noo bidaami noo sheeg macnaha waxyaalaha ugu muhiimsan is leedahay waa muhiim waa sax horta runtii anigu man guulaysteen global net hadduu jirin marka hore oo aniga da guushan gaadhay global net ayaa ka dambeysa especially adiga ka dambeeya macalinkayaga ee mugtay dadaalka global net ay gelisay inaan anigu IT ku shaqo tago oo dadku i wareystaan oo lagu yiraahdo su'aalo adag la weydiiyo adiga ka dambeeyay masha Allah way global net hadaan jiri lahayn anigu IT ba sheegaysay computer ma taabteen aan sidaan aaminsanahay wana ku celceliya runtii talabaad guusha waxa keena adigu waxaad na tustay dariiqa jannada loo marayo oo halka biyaha tag halka tag batiri laakiin in anigu ka talaabo wabiga amba badweynta kaluun kala soo baxo aniguna dadaal dheeraada ayaan la imiday waayo waxaan ku xidhanahay anigu global net dadka waan kula taliyaa markasta way maqlayaan inama badan halka jooga maanta waxaan ku dhahay iskuulka ku soo noqda ardada wax bara casharkii aad barateen dib dadkan uga faa'iideeyo oo revision class u sameeya dibadna maskaxda ku soo furmaysa dad badan waxaad noqonaysaa qof dad dhex gala oo communication ka barta oo wixii aad u ashalay baranaysa dhiga waana ku fududaanaysaa noloshuna easy bay ku noqonaysaa laakiin haddaad inta wax barato sidii niman aan garanay iska tagtoon wargeynaygu shaqo dhashay mad CV-ga iga soo habaysid niyoomad linka ay tustid ma soconayso wax kasta global net bay yaalaan amba website-keeda ha noqoto amba YouTube-keeda amba adigoo iskuulka ku soo noqnoqdo wigii maalin yimaado waqtigaaga siiya oo ardayda la fadhiista macalinka la fadhiista oo macluumaad badan ka hela anu intaas ku soo koobi lahaa assalaamu calaykum waxaan u rajeynayaa maxamed mustaqbalka shaqo wanaagsan meel wanaagsan iyo isaga oo dib noogu soo noqda muddo kadib laakiin uu ka shakeynayo horumarka weyn ee uu sameeyey oo insha Allah taala ku talaabsaday waana midda ay sameeyaan dadka ka baxay global net always waxaan ku dhahnaa ardadayna ha noqon barti yaqaan ha noqon qof meeshiisa kaliya ku eg ha noqon meesha ciidamada aad dhigatay inaad iska fariisato waayo waxaad tegaysaa meel IT ama shirkad ama public ha noqoto private ha noqoto NHS ha noqoto council ha noqoto dad ayaad u tegaysaa meeshaa joogay 6 sanadood 10 sanadood oo habi ku ah oo intaa kaliya ku eg bas laakiin anaga ardada waxaan u diyaarnaa waxaa waaye inaan dhahno okay muddo gaaban gudaheed hore u soco waana midda keentay dadka ka baxay global net maanta inay ka shaqeeyaan shirkadaha ugu waaweyn in muddo gaaban gudaheed ay sameeyaan isbedelo macnaha aad iyo aad u waaweyn laanna mindsetkooda wuxuu yahay mid ku dhisan meeshaada ha joogin meeshaada ha ku ekaan hore u soco marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala hamigeena uu yahay in dad badan oo soomaali ah oo dunida oo dhan inaan soo saarno maadaama hadda adduunku noqdo digital ama noqdo online oo u shaqeeya shirkadaha adduunka ugu waaweyn taana waxay ammaan u tahay ma aha keliyan global net waxay ammaan u tahay bulshadayna soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta hadduu qofku arko maxamed adoo IT ka shaqeynaya wuxuu ku leeyahay soomaali baa tahay
هذا هذا كله واو معناه قفك وكدريم يا فهم معناها إن معلم waxa arrin kale loo waxa jira imka London aniga ila 8 agency aan ka global level jira oo yaqaana way gabar bay igala soo hadashay martankiin magaalo leeyahay LinkedIn-ka igala soo xiriirtay waxa ku tiri Maxamed am happy inaan ku helo because global net bad ka soo baxday dad badan oo global net soo maran noo shaqeeyay marka martankiin noo soo shaqatay kartaa waxaan ku am afraid London ma degan aniga marka shaqo helo aan bal soo diro waxaan u sii gudbiyaa dadka asxaabta Maxamed Umar uu joogaa uu soo diraa Cabdiraxmaan uu sii gudbiyaa waan ku dhaafay waan wadaagna information-ka meel kuma hakino sida maxamed uu sheegay global net macnaha waa waxay noqotay waa household name markii timaado dhinaca agenciyada badankooda way yaqaanaan global net waxay aaminsan yihiin qofka ka soo baxa global net inuu yahay qof raad ka soo gudbtay oo aqoon fiican leh oo xirfad leh oo shaqadii qaban kara oo samayn kara waana midda keentay qofka haddii cv-giisa ay ku dhigan tahay global net in la dhaho anay nahay qofkaas oo qof diyaarsan laakiin waxaan hubinaa in qofka badda lagu sii daynayo uu yahay qof dabaasha yaqaan oo aan lagu sii dayn keliya bes in la tababar la siiyo in su-aalihii la tuso in systemkii uu yaqaano in basekiisu dhisan yahay in qof maskaxdiisa ay diyaarsan tahay in uu noqdo taas ayaan ku dadaalnaa waa midda keentay in ardadayna maasha allah in badan ay macnaha guulaystaan maasha allah kulley barnaamijka maanta wuxuu ahaa barnaamij amazing aad iyo aad u xiisa badan injineer maxamed wax badan uu ka dhawaajiyey meelo badan uu naga tusay motivation iyo dhiirigelin badan uu sameeyey marka wuxuu noo soo bixiyey waqtigiisa qaaliga ah iyadoo maalin sabti ay tahay oo howlihiisu ay aad iyo aad u badnaayeen marka waxaan leeyahay injineer waa ku mahadsantahay waqtiga qaaliga aadna siisay dabcan dadka soomaaliyeed ee barnaamijkan daawaday iyo kuwa ka daawan doona social media intaba runtii aad bay ula dhacayeen hadduu lahayd insha allah taala waan jecelnahay muddo kadib haddaba waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah oo xiisa badan waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa fii amaan illah